aniga ku hadlay magaca Somali for All. Somali for All saan ku aasnay waqtigan aasnay wuxuu ahaa 2006 Somali for All anagoo dhalinyaro badan oo reer Amsterdam ah oo isku nimid ayaan waxaan go'aansanay inaan urur sameysano ururkaas oo raba inuu telefishinka ugu horeeyay ee Holland in qaybteeda aan ka qaadano marka alxamdulillah 2006 Abriil ayaan ururka sameysanay markaan sameysanayna waxaan horta gashay inaan oo week walba arbaca walba habeenkii telefishinka Amsterdam iyo maqayris ama tuulooyinka Amsterdam u dhow inaan ka soo dayno arintaas waxaan ugu kaliftay ama fikirkaas nagu dhaliin waxay ahayd Amsterdam waagaas waxaa ka jiray telefishin oo Ethiopian ama Eritrean marka Soomaalida meesha kama muuqanin marka anaga waxaan la fiicnaatay inaan qaybteeda anagana ka qayb qaadano alxamdulillah sanadkii ugu horeeyay waxaan baraysan helnay oo leeyihiin waxaa tihiin dadka ugu firfircoon hadda soo galay meediyaha marka 2006 ilaa hadda ayaan barnaamijka telefishinka wadnaa telefishinka kasokoona Somali for All waxaan qabanaa waxyaalo project maanta xidhan waxyaalo yar yar ama afsanaan la shaqeynaa ama ururo badan oo Holland ah iyo project anaga aan qorano oo dhalinyarada ama shaqooyinka ama waxbarashada aan ka caawino waxaan sameynaa markaan doobno barnaamijkeena Amsterdam aan ka soo deynaa iyo website-keena somaliforall.com iyo YouTube kanaal aan leenahay YouTube-ka ayaa badan dadka nagala soo xiriiraan ayaa meesha naga daawadaan YouTube-kan wuxuu ku fiican yahay ma ahan local waa adduunka oo dhan Europe Africa America meelba badankooda waxaan ku sii deynaa Hollandaise laakiin haddii dadka qaarkood ee doortaan luqadooda ama afkooda Soomaali waxaan sameynaa af Soomaali laakiin anaga dadkana daawanayna ama dadka aan wareysana maahan Soomaali kaliya dad kale ajaanibo kala jiraan ama Hollandaise ahaadaan ama Maroccan ama Turki qof walba oo podium u baahan ayaan jaanis siinaa marka aniga kaliya maahan Somali for All waa group oo Soomaali isku timid Amsterdam degan iyo wadanka meel ka mid ah alxamdulillah 2006 saan soo degnay ilaa hadda studio waan ka shaqeynaa waxa badan hadda gacan ku hayna waa nin Axmed Shanle ama Abuna Maxamed dhalinyaro badan hadda oo maalmo meesha jooga dadna training siiya oo waxaan ka ilooy telefishinka markaan bilaabay markii dambe waxa codsiga soo batay oo dad dhalinyaro rabaan ama YouTube inay noqdaan ama inay waxyaalo ee media ka qabsadaan markii iyagana training siinay projectiga 2017 ilaa 18 project waxaan sameynay dad badan dhalinyarada reer Holland inaan training siinay sida iyaga oo media uga qayb qaadan lahaayeen ama sida haddii rabaan inay solstier sameeyaan ama haddii YouTuber noqdaan ama dad gabar waxaa jirta xataa cilaanka marsatay waxay dhigi jirtay cilaanka wuxuu aan aqaan laakiin sida dadka u geen lahaa fursadaas ma haysan fursadii heshay way jiraan laakiin dhibka waxa weyn anaga marmar qaarkiis Soomaalida hadaan nahay waxyaalo oo xiisa ba u sameynaa laakiin qof aan dhahay hadda ko professional ku noqday wuxuu ku sii watay ma jiraan laakiin qof walba oo nala jooga Axmed oo kale markuu noo iimaanay wuxuu dhawarnay oo Somali for All inaan wada shaqeynaa rabnaa waan soo dhaweynay hadda mas'uuliyad badankooda asaabahay wax media marka Abuna oo kale iyagana saas oo kale marka qof walba oo raba inuu heer ka gaaro chance waan siinaa laakiin isaga iyo tabartiisa waa qofka wax walba oo meesha aan ku qaban anaga waxaan ku fiicanahay urur ahaan qalabkeeni wixii meesha kiradana iska bixin qofka wax kaliya aan ka rabno waxa waa inuu balance sameeyo oo dhaho okay Somali for All waxaan rabnaa wax idin ka barto oo wax idin la qabto laakiin haddii aan maalin walba aan balance sameysan balantu ku soo bixi waayo wax marka waqtigeena meesha inuu nooga qasaaro marab saan hore kugu sheegay waxyaalo project maanta ayaan leenahay marka waxyaalahaas lacagaha oo xafiiska loogu talagalay ama studioga ayaan ka goynaa iyo waxa project walba aan qornayna faraabiil qasfarkooda wax la dhahay jiro dadka nala shaqeeya marka intaas wax ka siinaa marka anaga saas ku dabarno iyo wixii anaga jeebkeena hadda faraabiil qasfarkooda hadda oo wax saa u sii badan maahan laakiin waxa qof walba iyo wuxuu jecel yahay inuu meesha la yimaado marka dadkan hadda si walba oo leena faraabiil khan siinaa macnaheedu ma aha lacag mishaar lacag ku filan ma aha laakiin qof walba wuxuu rabaa inuu dadka kale u faa'iideeyo intuu yaqaan iyo intii awoodiis inuu dadka sii gaarsiiyo waa su'aal fiican efsan hadda waxyaalaha badan aan kala shaqeyno waxa kamid ah projectiga oo FGM ee dhahan gudniinta
dhowr jeer ayaan barnaamijyadaas la qabanay ilaa iyo waxaan geynay magaalooyinka Zwolle, Amsterdam, Baren. marka mar walba anaga oo barnaamij ama kaalinteena oo nol ka baahan yahay Efsan diyaaran u nahay. Efsan wax badan soo wada shaqeynaynay. marka intaa kadibna waxaan rajeynaynaa si fiican oo Efsan ula sii wadno wada shaqeynta. waxaan gudbinaynaa wax ma ahan anaga oo personal oo qof oo lagu attack gareynay ama qof lagu xumeynay